السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا له يو وحن إذن لو ذاك يا لبا قصة أو لبضوا بقى يكون سابسيهين فوائد حجابك ولي بس السجارة هاند مسج كان قبلها ولا له هي أيان ربا مسلمات كائن حجابك هي أهمية دي سي فوائد ولي هاي بل أي أركان لبضا قصة مد وقبر سوماليات بكل عضي waxay ahayd 93 93 taqriiban gabadha waxa la oran jiray labada gabdhood ba magacooda inaan xusaan rabaa waa Ruqayya Caabi baa la oran jiray magaalada Marka iyo magaalada Muqdisho jidka u dhaxeeya meel waxa ku taal laanta buuro oo ay niman Mooriyaana fariisan jireen oo dadka ku dhici jireen baabuurka la leexan jireen baabuurkii waa la leexiyay kadibna dadkii oo dhan baa la baartay waa la dhibay laakiin markay dadka baaranayeen gabadha waxa la yiri iyadoo xijaaban oo niqaaban dhinaca ugu istaag marka halkaas u taagneyd baa markii dambana la iska soo fasaxay qisadaasi waxay ku dhacday Ruqayya Caabi waxaan rabaa inaan hal mar labada qisaba aan bal daliilkooda aad ila fiirisaan practice sidoo uu yahay Ilaahi subhanahu wa ta'ala oo tafsiirkii Quraanka qisada labaad gabadh la yiraahdo Haala ayay ku dhacday oo Suuriya dalka Suuriya u dhalatay waxay ahayd 1979 ayay wadanka Mareykanka yimaadeen iyadii qoyskeedu aabahoodna waa ka soo horeeyay magaalada New York markay ka soo dageen baa waxa la yiri iyadoo xijaaban gabadha waa inaad madaxa banayso sawir laga qaado si green card waxa la yiraahdo lagu xareeyo kadibna gabadhii way diiday inay madaxeedii faydo wax badan baa la qasbay 3 saacadood buu wada hadal ku socday ilaa madaxdii diyaaradda isugu yimaadaan gabadhii arintii waa diiday diyaaradiina way ka tagtay kadib waxa lagu heshiiyay in ay diyaarad kale bari saaraan gabadhana iyadoo xijaaban laga qaado sawirkii iyadoo xijaaban baa laga qaaday diyaarad baana maalintii labaad la saaray waalidkood baa wuxuu ku sugayay California diyaaraddu waxay inay ka duusho meesha la yiraahdo New York kadibna ay Chicago ay ku sii degto kadibna ay California ay u gudubto waalidkii oo halka ku sugayay bay maalintii dambe u tageen isagoo ooyaya markuu arkay wuxuu yiri alxamdulillah ma ilaa hadda ma nooshiin idinku arintii bay la yaabeen kadibna waxay yiraahdeen maxaa dhacay wuxuu diyaaradii aad shalay la socoteen lambarkeedu oo ahaa 191 oo ahaa lambarkeedu oo ay saarayeen 171 qof way burburtay 171 qofna way dhinteen iyagana idinkana wuxuu yiri ma idin sugaynin hadda kadib bay markaa farxad iyo oohin bay isku dareen haddaba ayuha alxibba waxa gabadha hore badbaadiyay gabadhan badbaadiyo Ilaahi subhanahu wa ta'ala diyaaradda burburtay sababteed uga reebay waa xijaabka haddaad si sahlan u fiiriso aayadda Quraankan ku arkayna fi suurati al-ahzab aayadda 59 rabbi wuxuu leeyahay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما بلو في رسالة معناها آيات ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ها إني قبلوها دي حجابتان أيا وحي أوها بونتا ولو ذهي in la garto inay yihiin gabdho muslimaada gabdho xushmad leh gabdho la qadariyo oo fadli leh oo falaa yu'dayn aan la dhibin marka la dhibi maayo waayada macnaheedii Ilaahay baa ku badbaadiyay labada gabdhood iyo gabdho kale oo badan gabdho Ilaahay soo adduunka idin badbaadiyo aakhire intaan la gaarin hal xijaabto aakhirana insha Allah ta'ala naarta ayaad ka badbaadi doontaan wajazaakumullahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh